markaas ka kooban wuxuu yahay Ethiopia aragtida aan ka qabo wuxuu yahay Ethiopia iyada jiritaankeedu liita oo Ethiopia taariikhda la garanayo dambe ee cusub waxay ka mid tahay wadanada minority group ku taliya Ethiopia haday diin noqoto haday dad noqoto haday qoomiyad noqoto dawladda mililiktii xayle iyo tan mangiste iyo tan meles intuba waa minority group diin ahaana waa minority dad ahaana waa minority kuwa ka taliya wadanka Ethiopia la yiraahdo dadkiisii ugu badnaa diin iyo dadba waa inta la gumaystay bay ka mid yihiin sadaradeed minority dawlad wadankeedii ku ah umalayn maayo inay Soomaaliya sii gumaysan karayso kale iyada wadankeedii minority ku ah inay haddana Soomaaliya sii gumaysata waa wax adag laakiin Soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa Soomaalidu caqiidadan qabiilkee diin iyo wadan iyo dhaqan iyo dadnimada ka xoog badan intay jirto in reer loo gaaloobo gaalkii Ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay waxay Soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyay waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyay waxa imika axmaara wada reer baa lagu wadaa waxa la idan caqiida taala ah reernimadu qofka Soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada dadnimada diinta caqiidada wax walba cadawga koowaad aan arkay mujtamaca Soomaaliyeed haysta waxa weeyaan caqiidadaasi qaldan ay soo haysteen caqiidada waa in laga takhalusaa oo bedeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo dhaqan ay weyn u bedela hadi waahida kalabaad aan tilmaamayna waxa weeyaan bini aadamku markasta uu hadaf yeesho uu gaari karaa aan ahdaaf waaweyn yeelana reerku waa wax yar misaga qof ba qaada qof han la reer ma qaado reerku waa in yar dhowrkuna qof ma isku reertiin dhowrkuna qof wax madaxnimadooda iyo hogaankooda iyo inta la raadiyo ma xataa dadka hogaanka doonaya waxay inuu hanjiro hanweyni inay dadku yeeshaan oo ah war dunida inaan wax ka bedel ka fakara geeskii yaraa inaynu sii tunno intaynu ka fakarayno caalamka bashar baa maamula bashar baanaynu nay idan inuu hankeenu weynaado inaynu dunida wax ka bedelayna ka fakarnee tobankan midmadooba geeska jooga uu qaybintooda waxba tarimayso dad han la aan noqono ثالثا waxaan leeyahay diinteena aan dib ugu noqono oo islaamnimadeena qaadano رابعا waxaan leeyahay dadkana intay midoobi karaan ha midoobaan oo hal isku dayo war hadii waxaynu ku kala qaybsanay jira waxaynu wadaagnaa jiro ka badan waxaynu wadaagno oo badan baa jira inahaasi waxaan leeyahay hadii dadku ay ka fakaraan oo si ballaadan uga fakaraan wax badan baa la qaban karaa laakiin inta fikradu ku kooban tahay reer hebel dhulka ma geliye hadda reer hebelkan dhulka wax gelinaya isagu waxba ma helo waa inuu ka kala dhinto waxaan ku faraxsay hadii xataa reerku wax noqon lahaa waxba bay noqon lahayd reerkan kalun baa dhulka gelisay adigu waxba kuma kordhin ciidu ma kaasi dhimatay laakiin baga ma iga dhimasho badatay weeyaan intii doonayna shama anaga naga dhintay dina boqol baan idinka dilay war boqol iyo shan Soomaaliya ma ciida hoos marisay waxba kale ma kordhin idan waxaan ku koobaya wax weeyaan hadii han iyo islaamnimo iyo vision iyo qiyaadaad aragtida leh ay soo baxaan waa wax fudud in wax la bedeli karo xaaladkan ku noolay xaalada ka xun baana dunida soo marto wax laga bedelay wallahu a'lam markaas ka kooban wuxuu yahay Ethiopia aragtida aan ka qabo wuxuu yahay Ethiopia iyada jiritaankeedu liita oo Ethiopia taariikhda la garanayo dambe ee cusub waxay ka mid tahay wadanada minority group ku taliya Ethiopia haday diin noqoto haday dad noqoto haday qoomiyad noqoto dawladda mililiktii xayle iyo tan mangiste iyo tan meles intuba waa minority group diin ahaana waa minority dad ahaana waa minority kuwa ka taliya wadanka Ethiopia la yiraahdo dadkiisii ugu badnaa diin iyo dadba waa inta la gumaystay bay ka mid yihiin sadaradeed minority dawlad wadankeedii ku ah umalayn maayo inay Soomaaliya sii gumaysan karayso kale iyada wadankeedii minority ku ah inay haddana Soomaaliya sii gumaysata waa wax adag laakiin Soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa Soomaalidu caqiidadan qabiilkee diin iyo wadan iyo dhaqan iyo dadnimada ka xoog badan intay jirto in reer loo gaaloobo gaalkii Ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay waxay Soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyay
waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyey waxa imika axmaaro wada reer baa lagu wadaa waxa la idan caqiida taala ah reernimadu qofka Soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada dadnimada diinta caqiidada wax walba cadawga koowaad aan arkay mujtamaca Soomaaliyeed haysta waxa weeyaan caqiidada si qaldan ay soo haysteen caqiidada waa in laga takhalusaa oo bedeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo dhaqan ay weyn u bedela hadi waahida kalabaad aan tilmaamayna waxa weeyaan bini aadamku markasta uu hadaf yeesho uu gaari karaa aan ahdaaf waaweyn yeelana reerku waa wax yar misaga qof ba qaada qof han la reer ma qaado reerku waa in yar dhowrkuna qof ma isku reertiin dhowrkuna qof wax madaxnimadooda iyo hogaankooda iyo inta la raadiyo ma xataa dadka hogaanka doonaya waxay inuu hanjiro han weyni inay dadku yeeshaan oo ah war dunida inaan wax ka bedel ka fakara geeskii yaraa inaynu sii tunno intaynu ka fakarayno caalamka bashar baa maamula bashar baanaynu nay idan inuu hankeenu weynaado inaynu dunida wax ka bedelayna ka fakarnee tobankan midmadooba geeska joogaa uun qaybintooda waxba tarimayso dad han le aan noqono ثالثا waxaan leeyahay diinteena aan dib ugu noqono oo islaamnimadeena qaadano رابعا waxaan leeyahay dadkani intay midoobi karaan ha midoobaan oo hal isku dayo war hadii waxaynu ku kala qaybsanay jira waxaynu wadaagnaa jiro oo ka badan waxaynu wadaagno oo badan baa jira inahaasi waxaan leeyahay hadii dadku ay ka fakaraan oo si ballaadan uga fakaraan wax badan baa la qaban karaa laakiin inta fikradu ku kooban tahay reer hebel dhulka ma geliye hadda reer hebelkan dhulka wax gelinaya isagu waxba ma helo waa inuu ka kala dhinto waxaan uu ku faraxsay haddii xataa reerku wax noqon lahaa waxba bay noqon lahayd reerkan kalun baa dhulka gelisay adigu waxba kuma kordhin ciidu ma kaasi dhimatay laakiin baga ma iga dhimasho badatay weeyaan intii doonayna shama anaga naga dhintay dina 100 baan idinka dilay war 105 Soomaaliya ma ciida hoos marisay waxba kale ma kordhin idan waxaan aan ku koobaya wax weeyaan haddii han iyo islaamnimo iyo vision iyo qiyaadaad aragtida leh ay soo baxaan waa wax fudud in wax la bedeli karo xaaladkan ku noolay xaalada ka xun baana dunidu soo marto wax laga bedelay wallahu a'lam